السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولكن داود عمر وكما قاعدين أبوان داود علي مصلح وإذن كسو سلامي هل كان براها بالشدة عن كل هاي قايبتا فيسبوك إيو قايبتا يوتيوب كا كورنتا هاي أبوان داود عمر أنيقا وكما قاعدين أبوان داود علي مصلح قبيقان ونكا هدليو سوماليا oo dagaalo sokeeya ka bilaabmeen dagaalkaas oo u dhaxeeya qaybaha dawladda iyo isbahaysiga mucaaradka sida ay horeba ugu dhawaaqeen mucaaradku dagaal qabiilaysan haddii hadalkayga mucaaradka ku socda waxa weeyaan haddii aad markii aad isku keenteen maxaan ku oradaa hawiye kulley intii aad isku keenteen waxa idinka fiicnaan lahayd in aad Soomaali ku dhawaaqdaan Soomaali ayaan shirsiinayna aad tidhaahdeen laakiin hawiye ayaan shirsiinayna ayaa tidhaahdeen dalka Soomaaliya hawiye iskaligiis kama laha Soomaali ayaa iska leh oo nooc walba leh intaasan kaga gudba hadalkayga dhinaca madaxweynaha anigoo u soo jeesanaya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaan leeyahay dalka hal laga daayo dagaalka xaqiiqaduna waxay ku jirtaa sida nabadda ay taagan tahay in geedka nabadda la iskugu yimaado taas oo dastuurka waddanka loo raacayo taas oo la ilaalinayo dadka aadka u daran sida carruurta hooyooyinka dadka waaweyn iyo dadka curyaamiinta ah ee sidoodaba ku naafoobay dagaaladii sokeeye waxaan uga digayaa shacabka Soomaaliyeed dhammaan sida u dhan yihiin meel kastoo ay ku kala nool yihiin in ay taageeraan dagaalada sokeeye ay ku dhawaaqeen isbahaysiga mucaaradka iyagoo on hadalkooga auna ka soo dhawaaqin Soomaalinimo waxay ku jirto laakiin ay ku jirto qabiil kuwaas oo qabiilka maanta ay u socdaan ay ku gaarayaan kursiga u sarreeya ee madaxweynaha dalka Soomaaliya si ay u maamulaan ummadda Soomaaliyeed Soomaaliya qabiil ma maamuli karo qori horay ayaan u soo aragnay ummadda horay ayay u soo baabaday dalka iyo dadkaba horay ayay u soo baabeen waxaana baabiyey waxa uu ahaa xaqiiqadii qabiil iyo qori kuwaas oo u kala jajabay noocyo kala duwan sida xaqiiqada ururada islaamiyiinta loo yaqaano ee ka dagaalama Soomaaliya meelaheega kala duwan ururadaas oo sheeganaya islaam laakiin aanan islaamka sida xaqiiqada meel ka soo gali karin kuwaas oo Allahu Akbar leh laakiin Allahu Akbartoodu ay tahay afka qalbigana ayna ka ahayn kelimada laa ilaaha illa allah muxammadur rasuulullah sida rasuulkeenu sheegay sallallahu alayhi wa alihi wasallam qofka shahaadanaya haddii aad dishid wad camdi ku dishid waxaa kula doodi doonta maalinka qiyaamaha kelimadaas laa ilaaha illa allah muxammadur rasuulullah xaqiiqadu waxa ay tahay mucaaradka waxay ku dhawaaqeen dagaal qabiilaysan waxayna leynayaan waa walaalahood Soomaaliyeed muslimiin ah oo leh laa ilaaha illa allah muxammadur rasuulullah dhinaca kale Maxamed Cabdullaahi Farmaajo dalku wuxuu galay meeshii ugu darayd xaqiiqada markaan runta dhinacayga kaaga hadlo aniga oon cidna ka gabanaynin dalka badbaadiya haddii aad tihiin dhalinyarta iyo shacabka Soomaaliyeed dalkan innaga ayaa iska leh cid kale iskama lahan anigoo hadalkayga halkaa uga gudbaya waxaan ku soo cabiray gabay yar oo aad u gaaban satana inuu ku bilaabmi doono insha Allah biidmillaahi kariim dhegaysa bon bismillaahi raxmaani hoyaalay 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 hoye hoyaalay 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 hoye hoyaalayduna gabayga way ugu horraysaye nin waliba halkuu doonayo kaga hagagaye aniguna halkan doonayo bali haleeshiya
gaashaanka markan qaadayeen gedka saare gaadhay goor iyo ayaan waxaan galab carabaaba geesinimo ku doodayay oon askari garab ka dhiganayay galab carowgii galabti maxaan qori garab ka saraaba gayigan ku nool lahay maxaa galab carab jooje gaashaan la sare markuu garab ka sibayay goor hore waxaynagu gadoodanba gayigan ku faanayay maxaa galab carab jooje mucaarad iyo maamulkii dalkow gacanka hadal gaadhay mucaaradkii iyo maamulkii dalkow gacanka hadal gaadhay gorgor ayaa soo gale goobta ka fogaada farmaajow maxaa midig ka hadal keenay garab kaad ka dhiganaysay maxaa gedka saare saaray shacabkii dalkaygow geesinimo qato gurigeena noo dhowro geesinimo qato gurigeena noo dhowro geesinimo qata Somali weyn doono geesinimo qata halkaas waxaa idinkala socodsiinayay walaalkiin daawud cumar oo ku magac dheer abwaan daawud cali maslax waxaan idinkaga tegayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu